محمد حسن والدنتي وانا اللي دلي ولا دلي ميت كيسنه والله هيا ميت كيسنه والله هيا ان هبك لو دلي يقابك لو دلينا ما هيو طبعا قاري السبال وضح دلي ويسو قاريسه لكن وليا فاهفاهين لما قالوا ما دام المقاله كلا ان جوجو حتى wax kasto lagu sheego iyo khabarka too haystid waa laga fiirsadaa dilay kidmay ninkii waa dhintay yaa dilay see loo dilay طبعا dawladdu baaritaan bay sameynaysaa marasaas baa la dhacay ma la ceejiyay ma la gubay magaariga la marsiiyay ma sun baa la cabsiiyay ma irbad baa lagu duray how was he killed see loo dilay يا دلي يا لوغا شكسيه انا هو شخصيا مسكينك الله مسكينك الله صلى الله عليه وسلم مسكينك الله لا يدها انا ورن شيك بانا بيننا ما شيغو waxaan aaminsanahay ninka kan oo in badan ay leeyihiin dawladda Mareykanka ayaa dishay inaysan dawladda Mareykanku ay dilin baan aaminsanahay riisanka ku sheegaya ninkan nin ganacsada abu ahaa oo taxi bayra oo laakiin ganacsatada waaweyn ee gobolka magaalada Columbus ee Ohio gobolka Ohio kamid ayuu ahaa nin lacag haysto ayuu ahaa ilaahay xoolo iyo hanti ilaahay siiyo subxaanahu wa ta'ala oo ganacsigiisu ilaa Soomaaliya Muqdisho uu maartay gaarsiisanaa dilay kudmay shakhsiyan anu waxaan aaminsanahay Soomaali baa dishay ninka imaamka oo sheekh ah waxaana lagu dilay hantida iyo xoolaha iyo maalka oo haysta ayaa lagu dilay ana aaminsan dawladda Mareykanka ninka kan nin aqoon-yahan inuu ahaa way ogay waxna kuma falayso waa la xiri karay maxkamad baa la geyn karay dalka laga tarxiiri karay sidii Idris iyo dilay gudmay ayaa dalka ayr kaariye iyo yaa la dalka adeerna dhaf dhigi karay laakiin ninka wuxuu ahaa nin aqoon-yahan oo dilay gudmaayo master PhD dilay aqoon leh ganacsatada oo taxi bayra oo dawladda Mareykan gabar cadaan ah Mareykan uu qabay ninka gabar cadaan oo Mareykan uu qabay ilaa afar xaasmi uu qabay mis saddex saac gabar Mareykan oo cadaan uu qabay nimankan xidid buu lahaa ninku طبعا كورنه wuxuu ahaa nin tarjumaan u kala ah Soomaalida iyo dawladda iyo tarjumaan u kala ahaan jiray inta anu waan ogahay anu wargayna dawladda lama shirin FBI na anu maar hadii ay ku idmaayo shirarkooda anu kama qayb gali jirin hadday masaajidka igu yimaadaan su'aalo ay weydiiyaan anagu diintanadu argixisay ma nabadoonkaas miskiinka Allah nahay ninkaas America jecel oo miskiinka Allah halkaas iska cunayo diintiisa waardiyayo diintiisa baan ku dhaqmino hadii ay ku idmaayo halka kan gabdhahan gadgadoona Mareykanka iska ag joogaan anigu waxaan hayaba ma leh كون يكوجر مريكان مريكان واي قانون أنا قاعد يلاقي معي أصلاً أنا واي قانون أنا لكن نين أفارها دولة الشرير كده يوحي هذا كلام ما أهين لكن أصله يوداد هذا كلا وحي صدق ذي بلاد با أفرتي بلاد با الصومالية تالية تشوف دولة دويلة الشران ويس أركان ويس كور هيان ويس وريستان تالية دب كده وحى هايستا ويس كور هيان مركا أنا سبب أي كود دلان هرتور أنا وهالك كان أنا ما أجي ما أقان هدي للي هاي سكولة إسلامية أو فري هدي للي هاي ودادي هراء أصلا إن إدريس يو قعن يراء هاي ومساعد كبروا تيمو تشغل شقين شري هدي للي يكون مدوكسية قرآن بوهايا هدي وحاسونا أنا ما آمن سني سويت أمريكا وأنا كنت مسلمين أنا هنا وأقتعي أمريكا knows that I'm a Muslim أمريكا وايد تغنى أنا هالك كان أنا بدين تيجي أنا مسكين الله إسكا هاي أنا كاس مسكين الله إسكا دين دي سوار ديايا وأقتع والله بالله طلع أمريكا وأقتع يا دليبا أنا آمن سنة شخصيا بيرسونال أنا وحن آمن سنة هي وحن آمن سنة نينكا صومالي بهذا الشيء بنا آمن سنة الله ونهارست أنا قلت تعسيس سوق الشيء مركب والله دمنا هي وحرية ما دليل كد ما يقف حرية أدونك كن مجرت كلنا يعني ودمنا مركب إلهي ونهارست waxaan u gudbayaa marka walaalkeen Sheekh Maxamed Xasan baan u gudbayaa walaalkeen anigu waxaan aaminsanahay in la dilay waxaana dilay baan aaminsanahay Soomaali ama dad Soomaali ay shaqaalaysaysay labadaas ama Soomaali baa dishay ama dad Soomaali ay shaqaalaysiisay baa dishay
إن كان مريكان مركو قبطة ليلا دوني كان كشك السنة نيونا داف أرض الكاجئات اللي لا يقول معي سإلى إدريسي كارشة وايدين شغل أي أنا ليلا قفك مريكان كو أي قبطان المقريان وعيدا نينكاس إلكي سبا الله وعيا وعلى إلكاجي وعام والله وعيا وعلى كاركي كل كاركا لو سينايا وعلى نينكاس وحيرين سالتا بوليس باباري هاركين كان بوليس كدولد اسمها خيامي كرتو اسمها خيامي كرتو دولد marka qayb dawladda kamid oo brigaad roso ayaa kharijisay I don't know dad baabuur lagu dilaa iyo dad baa la waxyaa waa maqli jiray laakiin anigu kama filanayo dawladda Mareykanka inay habka u dhaqanto laakiin waa la dhahaa laakiin aniga 90% ninkaas oo u dhashay beesha galceel ee hawiye waxa dilay Soomaali baan aaminsanahay anigu shakhsiyan Soomaali baa dishay baan aaminsanahay Somali bad dishay baan aaminsanahay Somali bad dishay baan aaminsanahay ana aaminsan taasan anu aaminsan war Soomaalidu Soomaha anoo ka soo qaxay Soomaaliya oo intaas soo qaaradood soo jaray Somali Somaha ninka halka xabada aniga iga qabtay Memphis dhexdeeda Somali ma war Somali ma aan cid la hadashay aysan jirin wiilkii xawaale 411 iyo wiilkii cayr iyo wiilkii warsangeli ee guriga u soo dhacay anigu aan xishooday oo aan wiilal yar oo waadma waaweyn war Somali ha dacweyn ha ku dilo adiga bas ha ku sii dacweyn bay la tahay anigu inaan dacweeyo Somali Sheekh Maxamed Xasan aru masaajid kaas waan ugu tagi jiray masaajid kaas oo imaamka ka ahana ana dhisay dad kale dabcasar masaajidkii uu asaasay dabcasar aniga Maxamed Xasan masaajid igama dhicin Sheekh Maxamed Xasan igama dhicin daarood baa iga dhacay masaajidka asaguna nimankii daaroodka abu ninkii carabka intee la shiibu ka kaxayst oo asaguna ka qaat markuu ku qaateen inta uu baa masaajidkan xalaal buu ku yeemay Sheekh Maxamed Xasan ana ku iri ayanu maanta inaga baxay sida uu agtahay sheekha in la dilay baa loo malaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa dhibaatadaas iyo waxaa dhacay ilaahay subxaanahu wa tacaala dilkaas wixii geystay ilaahay inuu gacanta soo geliyo dhammaanteenna sheekha samir iyo iimaan inaga siiyo communitygeena maanta Soomaalida America oo dhan qof magac weyn leh imaamkeeni ahaa gobolka doonaba ha joogo laakiin imaam kasta oo Soomaaliyeed iyo sheekh kasta oo Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ayuu imaam iyo sheekh u yahay iyo caalamka islaam oo dhan dhibaatadaas maanta inagu dhacday ilaahu naxariisto jannada firdawsna Allah ka waraabiyo waxaan si gaar ah taasi ugu dirayaa dhammaan ehelkiisii iyo qaraabadiisii ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada firdawsna Allah ka waraabiyo samiri iimaan Allah idinka siiyo dhammaanteenu inaga wada baxay sheekhu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa dilkaas wixii geystay ilaahay inuu gacanta uu soo geliyo oo ilaahay uu soo dedejiyo dawaaka Soomaaliyeed arintaas dhacday ilaahay sabir iimaan hay naga siiyo sheekheeni hana loo soo duceeyo waa maalin jimcaha wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتصب إهل قرابة سوماليوين وحلناي إنا لله وإنا إليه راجعون ولكن الله نحرسته دنبي سيكي والكسب الله دافو إلهي دار تانك خير بدنا هو بدلو إلهي سبحانه وتعالى سؤال قبرك هو فضيو إلهي سبحانه وتعالى إن كوي دلي إلهي سبحانه وتعالى الدونك كفضيحي آخرنا كفضيحي ولكن شيخ دكتور محمد حسن إمامكي مسجد أبو هريرة الله نحرسته وحان جوغا وان جوغي بريها كان oo aan shil baabuur ku galay oo aan ku mashquulsanaa baabuurkay oo halkan yaala shilka aan ku galay aad aragteen magaalada Florence waxaan hadda hor taagnahay makhaayadda East African Community oo ah makhaayadda kaliya oo caalamiga ah ee ku taala magaalada Florence magaalada Kentucky gobolka Kentucky ayaan joogaa waan joogay bariyaha kan dhan walaalayaal
الله نحرست محمد حسن والدنتي وانا للدلي ولا الدلي ميت كيسنه والله هيا ميت كيسنه والله هيا ان هبك لو دلي يقابك لو دلينا ما هيو طبعا قاري السبال ودح دلي ويسو قاريسه لكن وليا فاهفاهين لما قالوا ما دام عند مقاله كلا ان جوجو حتى wax kasto lagu sheego iyo khabarka too haystid waa laga fiirsadaa dilay kidmay ninkii waa dhintay yaa dilay see loo dilay طبعا dawladdu baaritaan bay sameynaysaa marasaas baa la dhacay ma la ceejiyay ma la gubay ma gaariga la marsiiyay ma sun baa la cabsiiyay ma irbad baa lagu duray how was he killed see loo dilay يا دلي يا لوغا شكسيه انا هو شخصيا مسكينك الله مسكينك الله صلى الله عليه مسكينك الله لا يدها انا ورن شيك بانا بيننا مشيو waxaan aaminsanahay ninka kan oo in badan ay leeyihiin dawladda Mareykanka ayaa dishay inaysan dawladda Mareykanku ay dilin barnaamijsana riisanka ku sheegaya ninkan nin ganacsada abu ahaa oo taxi bayro ah oo laakiin ganacsatada waaweyn ee gobolka magaalada Columbus ee Ohio gobolka Ohio kamid ayuu ahaa nin lacag haysto ayuu ahaa ilaahay xoolo yaanti ilaahay si subhanahu wa ta'ala oo ganacsigiisu ilaa Soomaaliya Muqdisho uu maartay gaarsiisana dilay kudmay shakhsiyan ana waxaan aaminsanahay Soomaali baa dishay ninka imaamka oo sheekh ah waxaana lagu dilay hantida iyo xoolaha iyo maalka u haysta ayaa lagu dilay ana aaminsan dawladda Mareykanka ninka kan nin aqoon-yahan inuu ahaa way ogeyd waxna kuma falayso